السلام عليكم داوداشا qiimaha badan ee ku xiran Gareeqan channel meel kasta aad duugada ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub hadda halkan ku cusubta channelka subscribe ku sameey comment ka soo bixi sheekada asxaabta la wadaag waayo arintaas aad iyo aad aynu dhiirigelinaysa waayahay daba qisadan waxa ka sheekeeyay Sheekh Ali Rashid waa sheekh ma sha Allah oo badan ka sheekeeyay qisooyinka aad ka u saameynta badan qisooyinkaasna asiga ma aha wax qiyaali ah oo ka sheekeenayo waa waxyaabo asiga la soo wadaagay qisadan waxa la soo wadaagayo dadka qisadaas ay ku dhacday hadaba Sheekh Ali Rashid wuxuu leeyahay waxa qisadan ila wadaagay wiil dhalinyaro Sheekh Ali Rashid wuxuu leeyahay wiilkan dhalinyarada wuxuu ahaa wiil muadina mashaajid ayuu muadin ka ahay ma sha Allah wuxuu ahaa wiil akhlaaq wanaagsan dhaqankiisa aad wanaagsan yahay salaadahan aad u xifdiyo qaraabadan xiriiriyo dhaqankiisana aad wanaagsan yahay dabeecadiisana aad wanaagsan tahay qurux badan soo jiidasho badan ma sha Allah furfurnaan badan saaxiibadiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka dhan wanaagsan hadaba waxa dhacday saaxiibadiisa inay ku tashteen inay sameeyaan arin samafal ah waxay ku tashteen inay aadaan tuulo u dhow ee ku nool yihiin dad masaakiina dadkaasna waa dad u baahan caawinaad dhanka cuntada iyo biyaha marka hore waxay u sii qaateen cunto iyo biyo sidoo kale tuulada ay u socdaan isla tuuladaas waxaa degan wiilkan qisada ay ku socoto awowiis iyo ayeeyadiis markay tuulada gaareen ayay waxay u qaybiyeen dadkii tuulada deganaay cunto iyo biyo saaxiibadiis way soo laabteen asiga laakiin tuulada ayuu ku haray maadaama qorshihiisa uu ahay markii amalka samafalka ay dhameystaan in uu booqdo awowiis iyo ayeeyadiis oo halkaas deganaa si toos ah wuxuu u aaday gurigii ay deganaayeen awowiis iyo ayeeyadiis wuu u tagay oo booqday sheeko dheer ayaa dhex martay sheekadiisa u wadeen waxay la gaartay habeenkii xilli dambe awowiis wuxuu ku dhahay waxaad seexataa qolka ugu dambeeya guriga salaas wax markii la gaaran anaa ku soo kici doono wiilkii wuxuu aaday qolkii awoowo u tilmaamay qolkii ayuu diyaarsaday sariirtii kadibna wuu seexday haddaba saqda habeenimo markii la maraayo xilliga hurdada ugu macaanta 8 saac habeenimo markii la maraayo ayaa wuxuu dhahay wiilkii waxaan dareemay qolkayga ilbaabkiisa in mar la furaayo marna la xiraayo door mar ayaan waxaan dareemayaa in qolkayga marna la furaayo marna la xiraayo waa la furaa waa la xiraa waa la furaa waa la xiraa waa la furaa waa la xiraa waxaan isdhahaa marka warniyo waa calaaluguusa hurdaa kugu jirtee waxaan riiriye waaye waxa laga yaabaa in niyadaada ay tahay aysan wax xaqiiqo ahayn ee iska seexo xogaa kadib markaan jiifay ayaan indhaha kala furay daba guriga waxaa ku noolaay gabar aad u daayar oo dhalinyaro ah oo guriga qaadimad ka ah guriga ka shaqeeyda waxay cuntada u karisaa awoowaha iyo ayeeyada guriga nadaafadiisa ay qaabilsan tahay bishii ay lacag qaadataa gabadhaas ayaa guriga joogtay waxayna ahayd gabar aad u qurux badan oo soo jiidasho leh da'ahan aad u yar markii aniga aan isdahay in niyaday ay sheegayso iridda waxa furaayo xiraaya aysan ahayn wax xaqiiqa ayaan hurdada iskaga laabtay xogaa markaan jiifay indhaha ayaan kala furay isla markiiba dhinacii waxaaba jiiftaba gabadhii jaariyada ee guriga ka shaqeynaysay ayadoo waliba qaawan waxay bilowday inay igu dhigto isla markii waan booday waana naxay waan iska kala tuuray gabadhii qolkii ayaan ka soo baxay musqusha ayaa aad waa qubaystay waa weyse qaatay mashaahidka ayaan soo aaday waaga markuu bariyay ayaan awoowihii u sheegay arintii dhacday waxaan ku dhahay awoowe xalay qolkii waxa igu soo gashay gabadhii jaariyada ahayd waxayna rabtay in aan sameeyo ficil zinaa wayna ugu dhigtay waa iska kala tuuray mashaajidka ayaan aaday ala kulli xal qisadii ayuu uga sheekeeyay awoowihii isla maalinkaas gabadhii jaariyada ahayd shaqada ayuu ka saaray Sheekh Ali Rashid marka wuxuu dhahay dhalinyarada hadda joogto haddii ay naag helaan ee jaanis fiican ku helaan ma dhaafayaan laakiin wiilkan dhalinyarada ah oo muadinka ah oo doorsanaa jiray markii jaaniskaas oo helay bal fiiri waliba jaanis wuxuu helay aan caadi ahayn qolka guriga ugu dambeeyo ayaa waxa ugu imaaday gabar qurux badan dhalinyaro ah waxayna ka dalbanaysay zino wuuna diiday wuxuu ka baqaayay ilaahay ishiisa inay aragto marka wuxuu dhahay wiilkan wuxuu ahaa wiil taqi ah ma sha Allah qisada markuu iga sheekay aad baan ula cajabay waxaana ku fikiray in dhalinyaradu ay ka mid yihiin dhalinyarada noocan oo kala oo qalbigooda taqwada ay ku weyn tahay alla ka cabsiga ay ku weyn tahay baynama dhalinyarada qaar markii jaaniska noocan oo kala helaan inaag dhalinyarada qol ay ku helaan ama ay ayada isu dhiibtabo waxa laga yaabaa inuu si automatically uga zinaysto qisada marka waxaan ka faa'iideynaa qofka mar walba ilaahay inuu ka baqo meel alla meesha joogtid ilaahayna ka baqday ittaqullaha haythama kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin ilaahay meel alla meesha joogtid ilaahayna ka baqda la rabaa wa fan soma waa qisadan ayaan ka faa'iideynaa haddii xumaan ay ka dhacdana xumaanta waxa raacsiisa wanaag way tirtiraysaa dadkan waxa kula dhaqanta dhaqan wanaagsan marka qisadan waa qiso aad cajiib u ah
haddii qisada aan ka heshay muuqaalka lecture comment qurux badan soo qor aniga waxaan leeyahay inaan kaliya muuqaal soo gudbiyo laakiin daawashada aniga mali mana quusa dooni horaa waxaa loo yiri kama adkaan doontid qof aan quusanin anigana ma quusta ayaa ahay ma quusanay youtube ku xarajeena insha Allah watch time inaan buuxino meel sarana aan ka gaarno insha Allah waad mahadsantihiin ilaa halkan hadda soo gaartay muuqaalka channelka subscribe ku samee comment ka soo bixi shakara saxaabta la wadaag waxaan noo balan insha Allah muuqaalka xiga iyo qisada xigta